Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal. Waa Boolimoog Media aad uga barateen halkan idinka soo gudbiyo wararkii warbixinada Ramadaan Kariim meel kasta oo dunida kaga sugantiin. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay inuu ciidamadiisa militari kala bixi doono dalka Sacuudiga. Dalka Ingiriiskana xogayaha caafimaadka ama wasiirka caafimaadka ee dalkaas ayaa waxa uu sheegay in xaaladda ay faraha ka baxday oo aan waxba laga qaban karin, ayuu sheegay isagoo oo Ingiriisku noqday dalka haddeer Yurub ugu horeeya xagga saameynta marka loo eego wadamada kale, isaga oo lagu qiyaasay dad 30,000 kor u dhaafay inay halkaasi ku dhinteen. Waxaanu kaloo idiin haynaa dalka Mareykanka waxaa dib loo furay in ka badan 33 state iyadoo ay dhimashadu kor u dhaaftay ilaa 75,000. ayaa waxaa la sheegayaa in magaalooyin badnaa oo ugu muhiimsanaa dalalka dib loo furay sida New Jersey, New York, Arkansas, Ohio, Tennessee, Texas, isteedadaas oo dhammaantood dib ugu soo noqday hadday noqon lahayd xagga shaqooyinka warshadaha iyo shaqooyinka caadiga ah ee rayidka iyo dhammaan suuqyadii oo dib loo furay. Dalka Mareykanka oo ah dalka ugu horeeya ee uu saameynta ama dhibka ugu badan ee uu ku hayo COVID-19 ayaa waxaa haddana lasoo sheegayaa in magaalada New York ay ku dhinteen 2 wiil oo yaryar, kuwaasoo la sheegay in xanuun dhif iyo naadir ah dunida mar lagu arkaa uu asiibay, kaasoo qofka kasoo yaacayaan jirkiisu finan aad u fara badan iyo indhaho casaanaya, taasoo loo malaynaya ayay yiraahdeen dhakhaatiirtu inuu la xiriiro cudurka COVID-19. Waxaanu kaloo idiin haynaa dalalka Yurub sida Faransiiska, Talyaaniga, Isbayn, Jarmalka, Ingiriiska ayaa waxa ay dhammaantood u dabaaldegayaan sanad guuradii kasoo wareegtay dagaalkii labaad ee adduunka, iyaga oo xusaya dadkii kaga dhintay halkaasi. Wadamada ugu horeeya ee aadka looga dabaaldego waxa ay yihiin wadamada Jarmalka iyo Faransiiska, oo la oran karo waxay ahaayeen kuwa ugu dhimashada badnaa marka loo eego dagaalkii labaad ee dunida soo maray, oo haddeer laga joogo muddo lagu qiyaasay 77 sano. Dalka Hindiyana waxaa ciidamadooda iyo mintidiinta Kashmir dagaal uu ku dhexmaray halkaasi ku geeriyooday saraakiil Hindi ah iyo dhowr nin oo ka tirsan mintidiinta sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalkaasi Hindiya. Kashmir oo ah meel ay ku dagaalamaan niman gooni ugoosada iyo dowladda Hindiya had iyo goor ayaa waxa ay tahay meel istiraatiiji ah oo dowladda Hindiya aad ugu muhiim ah. Waxaanu kaloo idiin haynaa dalka Liibiya waxaa la sheegayaa in Generaal Haftar kooxo taageersanay ay duqeymo u geysteen saldhigyo militari iyo weliba garoonka caalamiga ahaa ee magaalada Tripoli, iyadoo la sheegaya halkaasi inay ku gubeen diyaarad rakaab. Waa markii labaad ayaa la yiri oo ciidamada taageersan Haftar, jankan goosadka oo doonaya inuu talada ka faramaroojiyo xukuumadda haatan jirta, waa markii labaad soo weeraray ayaa la yiri gegida dowladaha. Waa Boolimoog Media.